si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan ee Radio Kulmiye fadlan subscribe saar channelkan koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan war kalamaanay waxaa la yidhi talaxuma haddii lagu tartamo nin iyo taagtiisa lana tago garoon loo tabciya meel billadi taallo soomaalida in loo toli lahaa taa anaa huba taasanina mayba koo aray dad taluhu hoobad aragda tolma hariiriya shalta faraaruye war haraa loo sheegayo ummaddii tashan weyda waa loo taliya war anigu waxaa maqli jiray tusaalo inaan noqdo tilmaan dadku iga dhigtaa tallaabaan u soo jiraa taariikh dheerna waan ku sugay aa maqli jira gabartoo waliba ku dheegi jiray haddaadan tumaynin ama aadan tagaynin taswiir amalaad u taagantahe matiirkii magaalada tahay warnimayo waxaa la yidhi maxaan tira ku gaarnaa teelteel inaan nahay tartan uu hoggaan yahay tawfiiq la'aan nahay tifif uu yarkii yahay siday aniga ila tahay dawladnimo la tiigsado waa calaacal timo leh aryadhaha abwaan cali barre xuseen ba hadda ka hor wuxuu yidhi oday tali tusaale abwaan tiri toobyaha sheeg welina waa la tebayaa waranna waxaan maqli jiray tog dheer bay ila xusho haddana ma tallaabi karo taakana way jirtaa warnamiyow lantuurle tabtiisnjiifda u sii gorade regtaladayna haajishal teegantooda kora ee hal taladoy warxaajaadan afqalooc wuxuu yidhi tabantaabaday laba gacmood tamar ku yeeshaan tista waxaa la qaadaa markay tiirisaa bidix hadday midigtu keli taagan tahay tahar ma goyseen aryadhaha horaa waxaa loo yidhi aqaltiir la'aantii keligii ma taagne haddaynaan istaakulin tabaar yeelamayne ka tashada cadaawo isku tiirsanaada war waa tii la yidhi rag tashaday waa toli karaa xaajo kala taagane tafaraaruqiina waa ka sii badanaye maxaa u diiday madaxda Soomaalidu inta tashadaan inay waxuun isku raacaan bal adba warnamiyo oo tiraga talashaan yoonay talaraawu unaba maalin walba geedan hoosisa tuugsanaa ama talashaan haanay mastal rahaanay warmadeeyo goormaynu tuugsanay maxaad inoo masabidaysaa aryadhaha idinkoon isdaalin waxaa horay loo yidhi hay taabantintaaniga xir taladu noogu toosime hay taabantintaaniga xir taladu noogu toosime maaho war ma haysiine Soomaaliya meel kastoo joogto kursiga lagu falay war taas Afrikaanka oo dhan baa ka simane maxaad Soomaalida gaar ugu eedaynaysaa war Afrikaan qura maxaad u eedaynaysaa carabta xaggaad geysay war bini'aadamka oo dhan ayaa kursi jeclida lagu falay laakiin shuruuc kale celisa ayay leeyihiin ummadaha horu maray aryadhaha tanya haddaan dhashay hadda intii ka dhaxaysa ummadaha horu marayaan maqlaaye goormaan ununkuna hormarayna waradhaa warka waa ku soo boodi jirteenayna dhegaysta madaxweynihii Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle mar kale uu musharax yahay cararkii Jabuutina waxay dhaheen doorashadaani cadaalad maahan oo ka qayb geli mayno kaali mu'aarad meel kastoo suroogan isdardaaramay aan waabiyaabay Ismaaciil dhowr doorasho wuxuu sheegay inuusan mar dambe tartamaynin warda dhanshaa waalan dhergaana ka daran isin horan artana dooganiin wad war Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha la taliya waa cole talow yaa la taliyay laakiin Ismaaciil hadda ugu daraayo wuxuu yiri inkastoo aan daaladoo duqoobay dhalinyarada iga codsatay inaan tartamo mar kale marka waxaan la yaabanahay dhalinyaro duq ka codsanaysa inuu u taliyo xaggee joogtaa maanta war waxaan maqli jiray 20 jir intuu geed ka booduu tale ka booda marka dhalinyaro tale loo dhiibaa hadday wax toosinaysana Soomaaliya indhaheeda waad aragtaan marka reer Jabuuti waa ku saxsan yihiin inay gurgurshaagooda rartaan war madaxweyne Farmaajo hadda ka hor wuxuu yiri Jabuuti waxay ku horumartay in Ismaaciil 20 sano u joogay annaguna 20 sano iyo ka badan haddaanu joogi lahayn wax fiican baanu qaban lahayn laakiin isbedbedel bay nafta nagaga qaadeen oo hadda madaxweyne Farmaajo waqtigiisii oo dhamaaday wuxuu u fadhiyo ma isbedel diidnima idaan anaa u jooge waxood anaa cunaaye idoo kale taraadso ya dheegi jiray yeediyu
war madaxweyne farmaajo hadda ka hor wuxuu yidhi 4 sano haddaan dhammaysto mar kale isu soo sharixi maayo xil dambana ma rabo oday Soomaaliyeedaan ahaanayaa kadib see Ismaaciil ugu daysaday ma ku been abuuranaysaan war reer kalmaanoon may basiin kaliyaabay walaagi madaxweynaha fartiiska dhiidinaad sheer gareesan may makiishootana war Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu yidhi dhalinyarada iga codsatay inaan mar kale tartamo markaas oo ma dhici karto madaxweyne farmaajona inay xoogaga wadaniyiintu ka codsadeen inuu xilka iska hayo hadda waxay dhaheen madaxweyne farmaajo dib u laaban mayne noo dir hawsha noo dir kacaankii daryeelko xilka guud ilaajo kama waana deeqde ebidka hanaga dumin miyay dhaheen war madaxweyne farmaajo markuu yidhi 4 sano ka bacdi anigu xil ma rabo kadib inaa fawoorki la tiliyaan u malaynaya aryadaha madaxweyne farmaajo beriga oo madaxweynaha naqday waa ogeedeen halkii banaanbaxaha iyo sida loo taageereeyo xabadihii loo riday berigana dadka 4 sano ka hor u banaanbaxaaya ka banaanbaxow haya asoo xabada la hor taagan yahay asoo leeyahay ma banaanbixi kartiin muga taasu ma waysan waana ugu filnayn war Allah u naxariistay madaxweynihii Masar Jamaal Cabdinaasir wuxuu yidhi siyaasadda jaranjara lagu fuulaa laakiin fooqa u sarreeya markaad tagto jaranjaro lama hele waa laga soo dhacaa war geedkii roorligu kor roora lahanka dega waa dheegi jiray geedkii roorligu kor lahanka faniina waa sheentanaatana waradhaa war ma haysaane madaxweyne farmaajo culummadii Soomaaliyeed in badan oo kamidii waa la hadleen Sheekh Maxamed Umar waad maqlayseen Sheekh Asmaan Usuuli isna waa la hadlay Sheekh Maxamed Idris asna waa la hadlay dhammaantoodna waxay ka midaysnaayeen war Ilaahay ka boqo kursigan ha isku dhajina ka kac war culimadaas oo dhamo mucaaradkana waa la hadleen waxayna yidhaahdeen war dalku inuu burburo sabab ha u noqonina dadkana ha kicinina dagaalna ha u horseedinina inta alla ka cabsataan si degan wax ku doona yaa adoogu kursiga waa jecel yahay loo daayo miyay dhaheen warna miya ulama badan hadalay wiilba ma hadal yeenan deegne gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Ahmed Salaad war Sheekh Bashiir Ahmed Salaad maalintii doorashadii madaxweyne farmaajo lagu doortay ay dhacaysay waa kii baarlamaanka la dardaarmay waana kii yiri kelmadii caanka noqoto ahayd codkiina ku cibaadeysta waxaana la sheegaa inuu dardaarankiisii doorashada saameyn weyn ku yeeshay marka maanta xaaladdu jiqtahay muxuu aamusan yahay ma wuxuu rabo helay war waqti ulmada aamusta may roogo sheekh madaxweynaha walhanka daraynaad ma ingar waay war waxay dadku leeyihiin dega oo mano eray ka suga arxan ka fishee ma ilowsan tahay war ma haysiine banaanbixii markii la joojiyay daljirka daahsoontu ayaa la helay bar haddaasan takiyaal ma xagga tarabuunka la isula guuraa la yiri war ma kaxda xagga loo dhaafay war stadium Muqdisho miyaa lagu ballamay war miranaaye iyo xaruntii Muuse Suudi miyaa la isla aaday war garoonkii Daynile oo qayra diyaarshay iyo dalxiiskii miyaa la isla aaday wareedaha meelaha ka goobaysan ma jiraan wuxuu yahay warkayga dhageysta waxa la isla tagay garoon weyn oo la yiraahdo Club House oo cid ciidan gey karta aysan jirin ariya garoonkaas ma Amerikaana waardiyeeya xalaaliga dhahayaale warka hay dhaxgalinin Club House waa barnaamij internetka lagu isticmaalayo intaas oo qofna hal mar lagu hadli karo sida banaanbixii oo kale habeen horena waxa bilaabay ra'iisul wasaarihi hore Xasan Cali Khayre oo dad badan kula hadlay xalayna waxay u shirnayd xildhibaan Mahad Salaad oo sira badan ka shifay caawana dawladda mucaaradka iska bareejaynaysa waxay soo diyaariyeen wasiir xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere oo shirkii dakaalo ka hadlay la yiri dadka sameystay Club House ilaa haddana madaxweyne farmaajo ugu weyn oo xalay ku soo biiray war dawladdu garoomadii iyo barxadii ay mucaaradka u diiday baa haysataa maxaa internet ku kalifaaya madaxweynuhu ma inta daljirka soo istaaga dadka la hadlo ayehe wadadii cadayd agta saarayo ku xaraabiyo cimrigii jiryo aynaankaay war ma haysiine shir kale la isugu imaanayaa baa la yiri stop shir damba ma baahnina karnoogni shiraan lagu heshiin in shacabkii ku daaliye u bedela dhasheekada war madaxweynuhu waa kii 3 jeer yiri shir ha la isugu yimaadee waana tii la imaan waaye yaa ku baaqay shirkan aryada xaadis u daalihaysan ma waan hadda ka hor la dhihin
shiraan dhammaanino shida badnaayaa shawriya sheexla'aan shiraan dhammaanino shida badnaayaa shawriya sheexla'aan waraanin waliba dheegi jiray xaggaa lagu shiray intaa lagu shiray beri baa la shiraa badanaa shiraraan wax tareen badanaa walaadhahay war baan idiin wadnaa idinkuna heesaad ku waalateen inaan dhegaysta shirkaani kuwii hore waa ka duwan yahay ra'iisul wasaaraha ku baaqayaa la yidhi afhayeenkiisaana sheegay madaxdii maamul goboleedyadoo dhanina waa inay yimaadaanaa la yidhi marka waxaan la yaabanahay nimankii madaxweynaha diidey ra'iisul wasaaraha see u aqbali doonaan walaalayaal soo dhawaada miyuu yidhi warnimiya waliisiin lahaa madaxweynaha tahiyaadka ka galdamiya ka aalay ra'iisul wasaaruhu hob tahiyaadka toosiya walanku emay war madaxweynaha waxaa la yidhi wakhtigii waa ka dhammaaday laakiin xukuumaddu waa sii haye war shanta beelooda Soomaalidu wax ku qaybsato markay wax ku heshiin waayaan marjaca loo laabtaa waayadan beesha lixaad bay ahayd marka waxaan ka baqayaa hadday madaxdeenu safgaran weydo road map in loo dejiyo waraadaha xildhibaan musharax Mustaf Dhuxulow ayaa gabay soo qoray uu yidhi madaxweyne farmaajo tiriyey wuxuuna yidhi banaanbuxu rasaas iiga daran laygu ridayaaye rida warana iigama duwana oo irwad goyne ragga ii tashaday iyo shacbigu iima kala roona tartan iyo isreebreeb aniga laygu riixaayo oo aanan rabin bay rabaan inaan ku riiqdaaye kursigaan ka sii raaracay iiga ridayaane runtuse waxay tahay inaan cayaar la iiga raynayne rayfal baan musharaxiinta ba'an ruuxa uga goyne rafiiqay abi yaan intaas raac isleeyahay amba siduu Itoobiya u rogay waa u rushayn xamare racantaas mudaharaadka jecel raranka gaarsiiya aryadaha madaxweyne farmaajo waxaan hubaa inuusan gabaygaan tirin Mustaf Dhuxulowna aad oo madaxweynaha ugu nabaa asagaana tiriyay war Dhuxulow hadduu sidaan u gabi karo mu abwaanada ku biiro siyaasadan iyo wareerkeeda iska dhaafo war inoo madaxweyne farmaajo tirina gobaykan may ku ogaaday shacabkan rusheeyna madi gabayga soo ka daraaw shacabku soo doorday rusheeyay war yaa see loo dhigi kara madaxweynaha tiriye gabaga war Mustaf Dhuxulow aare u weydii afka socodta marka hore idinka dhamaantiin war yaana kala fogaada idinkuba aryadaha corona jire kala sikan dalka loo shaqeey war kala sikada war yaana gooyo ma corona ku dhacay war nigidil nabadgelya loo baahay ila dhow war joojiya dagaalka war yaana aryadaha kala taga tawfiiqda Allah idin waafajiye